الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ويل دمر يفك تغييري واريد ما بقى تقديم على هل كنت وقتا مناسبة قالقين شوقنو حبناها golayaasha deegaanka ee la degmo ee goormaya baki ee ururradii aan xisbiyada u gudbin inta ku soo biirtay xisbiga kulmiye aad iyo aad baan salaamayaa. ilaahay kulankeena kula khayr qabaha ka dhigo, waxaynu doonaynaa wanaagsan ilaahay hayna waafajiyo. hadalka wuu soo dhaweeyay inanku malaha markii horena hadalka kumaan talagelin oo kumaan jirin, hase yeeshee haddaan hadalka galay yarayn maayo waan badin doonaa eeqaaleehaba. kulli hadalku ma dhammaado, hadduu yaryahayna wixii la doonayay lagama wada tegin, hadduu badan yahayna lama dhammayn. hase yeeshee markaan adin muddaa hadal aad ku talagelin haddaad soo gasho waxaa laga yaabaa inaad mawaadiic aanad ku talagelin marka hore inaad ka hadasho. marka hore ilaahay baa mahadle, marka xigana ilaahay waxaynu ka baryaynaa abaaraha dalkeena maanta ka jira in ilaahay naga jabiyo oo ilaahay raxmadiisa inoo shubo. dalkeena maanta abaaro culus baa ka jira oo aad iyo aad inoo dhibay. ilaahay unbaana inaga jabin kara, ilaahay abaarta inaga soo jabiyo, raxmadiisa ilaahay haynoo shubo. ilaahay aan weydiisanay in ilaahay roobka inoo shubo. aamiin aamiin aamiin. marka xiga axsaabta qaranku waa xisbiye qaran. xisbi qiimo yeelanaya ma jiro haddaan xisbiye kale oo la tartama aanay jirin. 3 xisbi qaran baana jira oo tartamaya, 3 murashax oo madaxweynea jira, 3 murashax oo madaxweyne ku-xigeenaa jira. taana aynu saa u fahamno. xisbiyada qaranna waa xisbiyada kulmiye, wadani iyo ucid. tartamayaashuna waa ragga 3daa xisbi ee kala matelaya, kulmiye iyo wadani iyo ucid. 3 xisbi waa 3 xisbi oo qaran, maanta kama dhaxayso, wanaag baa ka dhaxeeya. kubadda haddii garoonka koox kaliya gasho oo koox kale kubadda la ciyaartay waayo, miyay kubaddu qiimo yeelanaysaa? maya. labada kooxood haddii isku dheeli tiraan waayaan way aad u kala sarreeyaan oo qolka baashnoola tahay, qola kale kubadda baadee lagu oqoon tahay, miyay qiimo yeelanaysaa? laba kooxood Real Madrid iyo Bayern baasho isku soo hagaagaan soo ma waa yacni saasaa siyaasaduna waa inta tan xoogan iyo dad tartami karaya iyo ay jirtaan. marka horta 3deena xisbiba 3 xisbi qaran weeye, ammaan iyo wanaag bay naga mudan yihiin. nidaamka axsaabta aynu soo maray unkay inoo bilaabay allah u naxariistee madaxweynihii qarankeenan mudane maxamed xaaji ibraahim cigaal. isagaa aasaaskii axsaabta lahaa, waxaana hirgeliyey ilaahay cimrigiisa dheereeye madaxweyneheenii hore mudane daahir yaale kaahin. madaxweynihii talada hayay ee ugu dambeeyey ka horeeyey mudane axmed maxamed maxamuud silaayo. axsaabta qaranku way isla socotaa, xisbiba xisbigu u dhiibayaa, waana kubaddaada wada ciyaar ee la kala badinayo. kullay dhallinyar bay dadku u badan yihiin imika oo haddii xilliyadii hore marka ay madasha la fadhiyo dadka hore u badan yihiin, amsilada iyo tusaalooyinka la soo qaataa geelay u badan yihiin. markay dhallinyarta casriga u badan yihiinna maxaa lagu inta badan la soo qaadanaya? dabcan mar walba kubad baa la daawanaya. waay anigu qoladaa geelana soo gaadhay kubaddana soo gaadhay baa naho kullay dadka lala hadlaya 67% waa dhallinyarta imika. axsaabteenaasi saa laga soo horaba loo soo sheegay xisbiba xisbigu u soo dhiibay. markay xisbiyadu tartamayaan mar baa loo maleeyaa inay dagaalamayaan, lama dagaalamayo. waxaan odhan karaa xisbigii talada dalka haya udub xisbi adag buu ahaa, xisbi adag ayuu xaqiiqatan ahaa. haddaan xisbi kaloo adag oo isaguna kubadda la ciyaara aanu imanna, Somaliland halkay gaadhay bay soo gaadheen. runtii meel wanaagsan oo soo gaarsiiyey ilaahay cimrigiisa dheereeyay mudane daahir yaale kaahin. waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan
واحد عسيسي موسيقى قولي خدي سمع هاي مدحولة داخل ما ناخذيني حسب كلوت لنا كلو ليجي وبانو هاي تتنبوها سلا ما تبا مدحولها تلا هي حسب هذا معارض كله عدي وطني أي خمان أنت دليل هذا الشيء قال إني تلو كلو ليجي واي هذا حسبية الجلوه لنا تتبع كتير يمكن أن يتراها هل كان هذا كامل هذا يموس سكوكاي تربيو كبر لبا والله غير الله سكو مرتيا لو ده لما سكو مرتيا وكم أتريها حسبية الجلوه تتبع كتير ما كحسب الجلوه سترتنا على كناه ترتك على وحكينا من دم حسبك وحكينا حسبك إنه حسب بلارن أو ضم عليه أو طموح له أو خبيتالي حسب كجرا وحسأل يا مهم النقطة أما قيمة يلتها تتكابله إن نحسب بالقول أو بابين وعن وركلا تتكي حسب كل مية مدة كتير مو بالقول حسب أي كسر ضد قيمة لي لقيها بين حسبك كلا كلام أو يضمن نروح أي كم تقول عيب حين لكن وحنا ذكر labada yadii garab ee waad ka galabkii hogaaminayay gudoomiye Muuse iyo galabkan anigu hogaaminayay maana kala tagin mid badna waxaan idin sheegayaa inaan maalinkiiba ku fikirnaan kala tagnay oo had dagaal qadaalo xisbiga gudihiisa oo qof walba uu doonayay inuu isagu hanto hogaaminta xisbiga isaga ku guuleystay ana isaga dhisaya حسبنا حليك لدوني جوبك لدوم على جالس صابيري وعلى كان كحسين ولا كي محمد بيحي يونس أو وزير كي هو وزارة الرماد بدأها فجي كنت تمي مرشحنا بدل مدحونها وارجع الله مركي ودي ويس سيدو يسجدوني ودع على سيدي كلام يسجون إنه كنت جل حسب حسب الوجوه حصل يشاء القفل ما هو حلوي وحصل qof walba isagoo u madax banaan xisbiga uu doonayay inuu tago xisbiga uu doonayay inuu galo wada tartamaya xisbiyadu way tartamayaan waxana lagu tartamayaa dadka waxa lagu tartamayaa dhalinyarta wiilaliya gabdhaba waxa lagu tartamayaa waayeelka rag iyo dumarba codka dadka la raadinaya kulmiye wuxuu ku guuleystay 2010 inuu noqdo xisbi xaakim waxaa loolan adag iyo tartan adag dhex maray xisbigii talada dalka hayay udub waxaad ogtihiin xisbigii udub maanta aqlabiyadiisii iyo raggiisii ugu adadkaa intiisii badnayd inay ku jirta xisbiga kulmiye soo run maaha waa guul kale oo xisbiga kulmiye u haysto waa tiimam kubadda si wanaagsan u ciyaaraya qaad oo kulmiye u haysto waxa kale oo jirta in gudihiisana haddii loolan adag dhacay loolankii adkaana inuu ka bogsaday kulmiye oo dhinacu wada jeedo ilaahay idinkiina bulshada lagu tartamayo waxaanu qabnaa aqlabiyadeeda inuu heli doono waxa iga dardaaranaa oo taageerayaasha kulmiye iyo taageerayaasha kale axsaabta kalaba xisbiga wadani iyo xisbiga cidba waxay noo ballanaa ciyaar wanaagsan dadkeena waxaynu rabnaa inaynu u talino qofka doonaya inuu taliyaa sida wanaagsan uu dalka u hogaamin lahaa inuu soo bandhigo cunfi iyo xanaaq iyo caytan iyo ceebayn midna ma taalo laakiin waxa taqaana waxa inoo yaala ciyaar wanaag iyo in la tartamo oo dadka aynu u sheegno waxaynu doonayno inaynu qabanno siyaasadaynu doonayno dalka inaynu ku hagno kulmiye wuxuu hayaa barnaamijkii uu dalkan ku guuleystay inuu xisbi xaakim noqdo oo wixii dhaliila ka soo baxayna uu saxayo wixii horumar u gaadhayna uu sii wadayo haddii ilaahay idhaahdo ilaahay waxaan ka baryaynaa ogaa wanaagsan waxaan ilaahay ka baryaynaa tagta wanaagsan waxaan ilaahay ka baryaynaa abaartaynu inaga jabiyo xilligii ololuhu ma gaadhin caawo haddii siyaasadda iyo laga hadlana raggaa siyaasiyiinta ee xisbiga ku soo biiray sababtooda weeye waxaan leenahay ilaahay idinkii sida ilaahay ka dhigay noqon doontaa kulmiye isagoo xisbi macaan uu ku guulaystay inuu talada dalka qabto maantoo talada dalka uu hayana way adag tahay in laga badiyaa asalaamu calaykum waraxmatullahi